بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa channelkan YouTube-ka aynu ku leenahay ee xulka wararka. Kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida. Maamulka deegaanka Baxdo oo soo bandhigay hub aad u tiro badan ay ka furteen xarakada Al-Shabaab. Qodobkaasi oo faahfaahsan ayaa barnaamij wareedkayaga ku faaqidi doona. maxay tahay fursadda Al-Shabaab ay sugayso inay kula wareegaan guud ahaan dalka Soomaaliya. warbixina amuurtaas quseeya ayaa daawan doontaan. Ra'iisul Wasaare Xamse oo qaaday tallaabo cajaa'ib ah iyadoo Ra'iisul Wasaare Roble isaga tagay gabi ahaanba xafiiskiisa. iyana xoga ayaan idinkaga haynaa iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee dalka oo markiisii ugu horeeyay shacabka ka codsaday in ay ka qayb qaataan guri dhawaan loo dhisayo Farmaajo. codad uu soo duubay iyo muuqaalo ayaan idin la wadaagi doonaa hadduu Rabbi weyne qadaro. qodobadii nagu soo kordho intaan ku guda jirno barnaamij wareedkayaga ayaan idinkugu soo baahin doonaa. ugu horreyn daawada waxaan kaa codsanayaa haddii aad nagu cusub tahay in aad nagu soo biirtid oo channelka subscribe noo saar, muuqaalkana like garee oo share garee qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoogu reeb, iyana waa inoo muhiim. markana ku soo dhawaada qodobadii aad hordhaca aad ku maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. aynu ku horeynay daawade maamulka deegaanka Baxdo ee gobolka Galgaduud iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ku sugan deegaankaasi ayaa maanta goob fagaaro ah ku soo bandhigay meedadka xubno ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab kuwa oo looga dilay dagaalkii shalay, saanado ciidan oo looga furtay dagaalka iyo maxaabiis nool. saraakiishu waxa ay sheegeen in la tiriyay meedka 70 Al-Shabaab ah, waxaana ragga la dilay ku jira xubno ajaanib ah. sidoo kale waxaa nolosha lagu soo qabtay oo maanta fagaaraha Baxdo lagu soo bandhigay ninkii waday gaariga lagu soo raray waxyaabaha qarxa. madaxda qaranka iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug ayaa howlgalkan geesinimada leh ku amaanay dadka reer Baxdo iyo ciidamadii kale ee u soo gurmaday. waxa ayna reer Baxdo dowladda dhexe iyo Galmudugba ay ka heleen ballanqaadyo garab istaag ah. sidoo kale ugu yaraan 42 arday oo deegaanka Baxdo ku dhameysatay waxbarashada dugsiga sare ayaa maanta deegaankaasi ku galaya imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda. gudoomiyaha deegaankaasi Maxamed Cabdulaahi ayaa warbaahinta dowladda u sheegay inay haato wax cabsi ah aysan ka jirin deegaanka Baxdo. isla wararka Al-Shabaab inta aanan ka bixinna waraysi oo Mahad Karatay ku xigeenka hogaamiyaha Al-Shabaab siiya dhawaan Channel 4 TV ayuu ku soo bandhigay hadafka kooxdiisa ee dagaalka Soomaaliya. Mahad Karatay ayaa sheegay in fursadda kaliya Al-Shabaab ay sugayso si ay ula wareegto guud ahaan dalka ay tahay in ay baxaan ciidamada ajaanibta ah ee difaacaya dowladda federaalka. waa arin u muuqata inay Al-Shabaab ka shidaal qaadanayso Taliban oo 20 sano sugaysa inay ka baxaan Afghanistan oo bishii August 2021 ay la wareegeen, iyadoo taasi rajo gelinaysa kooxo badan. safiirka Mareykanka oo fadhiya Soomaaliya oo la hadlay Channelka 4 TV ayaa sheegay inaysan suuragal ahayn xiligan Al-Shabaab inay qabsato dalka oo dhami. Soomaaliya waxaa jooga ciidamo badan oo ajaanib ah, ADMIS iyo USA, kuwaasoo safiirka sheegay inay difaacayaan dalka maadaama amnigiisu uu muhiim u yahay gobolka Geeska Afrika oo dhami. Al-Shabaab waxa ay haysataa dagaalyahano lagu qiyaaso 7,000 ilaa 12,000, kuwaasoo marka loo barbar dhigo ADMIS kaliya ay aad ugu yar yihiin, balse xagga dagaalka ku kala duwan. Joe Biden, madaxweynaha dalka Mareykanka, ayaa bishii hore saxiixay go'aan lagu soo celinayo ciidamada Ameerikaanka ah oo gaaraya 500, kuwaasi oo madaxweynihii hore ee dalkaasi Mareykanka Mr. Trump ka saaray 2021 kahor inta uusan baneynin xafiiska aqalka cad. xarakada Al-Shabaab tan iyo 2008 ayay waday dagaal ku dhufo oo ka dhaqaaq ah
waxayna lumisay Muqdisho iyo magaalooyin kale oo muhiim ah iyadoo kooxda hadda kusoo ururtay deegaano iyo gobolada Jubbada Dhexe oo si buuxda ay u maamusho. Ciidamada Midowga Afrika ee ADMIS ayaa la filayaa inay dalka ka baxaan 2024 waxaana mas'uuliyadda amniga ay ku wareejin doonaan askarta dowladda Soomaaliya oo awood badani aan lahayn. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda Bangiga Adduunka ayaa ka wada hadlay xoojinta wada shaqeynta ka dhaxaysa hay'adda diimaha bixiyay iyo madaxda federaalka Soomaaliya. Bangiga Adduunka ayaa Soomaaliya siin doonta 100 milyan 12 bilood ee soo socda si wax looga qabto arrimaha mudnaanta u leh dowladda sida ay sheegtay agaasimaha Bangiga Adduunka. Mr. Christine ayaa ku ammaantay madaxweynaha sida ay ugu go'an tahay in uu dib u habeyn ku sameeyo maaliyadda dalka. Madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in dowladdiisu ay ka go'an tahay horumarinta adeegyada bulshada iyo shaqo abuurista dhalinyarada isagoona ku biiriyay Bangiga Adduunka in uu gacan ka geysto casriyeynta hanaanka shaqo iyo adeegga dowladda federaalka. Bangiga Adduunka ayaa hore u ansixiyay xirmo lacageed oo dhan 385 milyan oo dollarka Mareykanka ah si loogu caawiyo dhibaatooyinka ka jira dowladaha Itoobiya, Kenya, Soomaaliya, Djibouti iyo Koonfurta Suudaan. Isla wararkayaga ayaan ku guda jirnay qaybihii dambe ee barnaamij wareedkayaga ayaan ku sii siqaynaa. Markana haddii aan soo qabtana qodobka ugu dambeeya ee barnaamij wareedkayaga. Shirkadaha diyaaradaha ee dalka oo ku dhawaaqay shaqo joojin degdeg ah laga bilaabo maalinta Beritola. Guddiga maamulka diyaaradaha ayaa sheegay in laga bilaabo Berito ay joojinayaan dhammaan duulimaadyada gudaha dalka. Guddiga ayaa sheegay inay ka cabanayaan hubanti la'aanta amniga diyaaradaha. Maamulka diyaaradaha ayaa sheegay in hay'adda duulista rayidka ay ku guuldareysteen xaqiijinta amniga garoomada. Guud ahaan wanageynta qodobadii aad ka daawanayseen janalka aan YouTube-ka aynu ku leenahay ee xulka wararka. Daawada markaagii ugu horeeyay haddii aad tahay nagu soo biir oo janalka subscribe noo saar. Sidoo kale haddii aad ka mid tahay asxaabtii hore inoola joogay iyana aad baan kugu mahadcelinaya. Muuqaalka like garee oo share garee si aan u helno saaxiib sidaada oo kale u qalbi wanaagsan. mahadsanid haddii aad ii fulisay codsigayga. balse daawada intaan ku kulmi doono muuqaalkan kiisa xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.